بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. رب يسر ولا تعسر وأعنا يا كريم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف الدارين آمين. casharkeeni koowaad ee ku saabsanaa nolosha ama miisaanka nolosha, casharkeeni koowaad ee ahaa miisaanka nolosha ayaan maanta bilaabi doonaa. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa dhowr meeloo kala duwan waxaa noogu sheegay wax ku saabsan miisaan. haddana waxaa arkaysaa badanaa miisaanka iyo qur-aankana is daba socdaan. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يعني لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. waxaan soo dirnay rususheena iyagoo wata xujooyin cad, waxaana la soo dejinay ama aan soo dejinay micigooda aan ka yeelnay kitaabka iyo miisaanki. meesha marka waxaad arkaysaa inay timid kitaab iyo miisaan. luqadda carabigana waxaa lagu caatifa, markii waaw alcaatifa wax la raacsiiyey waawgii xiriiryaha ahaa, tadullu cala almugaayara, inay kala duwan yihiin. yacni kitaabkana waa gooni, miisaankana waa gooni. haddii la yidhaahdo masalan kishki iyo maxamuud ayaa israacay, maxamuudna waa qof, kishkina waa qof kale. marka saa daraadeed alkitaaba walmiisaan ayuu ilaah yiri. sidoo kale suurat araxmaan araxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu albayaan. intaas markuu ka hadlay wasamaa rafacaha wa wadaca almiisaan. marka hore qur-aanka ayuu ka sheegay ilahi subxana watacaala, kadib haddana wuxuu kusoo xijiyey ayado yar, kadib samadii sare ayuu u qaaday, kadibna wuxuu ilaahay soo dejiyey miisaankii. aayad kalena waa arkaysaa oo suurat shura ku jirto iyadana, oo ilahi subxaana watacaala dhahayo allahu aladii أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إلهي وكي سودجي كتابك بالحق. الحق ومجرور باء حرف الجر يعني. والميزان هدو أرن لها، يعني وحين نقول لها حق ميزان كبو حال سودجي كتابك. لكن أنزل الكتاب، أنزل وفعل ماضي، الكتاب مفعول به منصوب كردبا، بالحق جار ومجرور واو مركا عاطفة دي وحال رعسيا كي اي كحرنيد. والميزان هدو إلهي يراهدو حق اي لسعان لهيد، لكن والميزان الكتابة والميزان يعني. إلهي كتاب اي سودجي، ميزان وسودجي ليقوم الناس بالقسط، سيدتك عدالة وسعودان. مركا آيادهاس هي آيادة بدن waxaa arkaysa ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka sheekeynayo miisaan. miisaankii marka muxuu yahay? mufasiriinta qaar badan, ibn cabaas iyo rag kale, waxay ku fasiraan alcadlu walinsaaf, cadaaladii iyo ma aragtay dhexdhexaadintii ama insaafkii. qaar badan sa ay u fasirayaan, laakiin mufasiriin kale way jiraan, haba yaraadaan oo anigana aan ku waafaqsanahay, sida tafsiir السعدي wuxuu leeyahay الاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح. in cibrad loogu qaato, ictibaar loogu qaato qiyaastii saxa ahayd iyadoo la xambaarsan yahay caqligii weynaa. macnaha maxay tahay? ilaahi subxana watacaala kitaab ayuu soo dejiyey, kitaabkii axkaamtii wax walba way ku jiraan. miisaankana kii wax lagu miisaami lahaa waa caqligii. yani ilahi wuxuu ku cadaynayaa bashar mar haddaan nahay oo khalqigiisa naga dhex doortay subxaanahu watacaala, wuxuu nagu karaameeyey nicmat alcaql. caqli ayuu ilahi subxana watacaala khalqiga ku karaameeyey. caqligaas marka keligiisa hadduu socdane oon hoggaan haysanin wuu lumaya caqligii. waan u jeednaa dholalkan aan ku noolnahay
horumar walba ay gaareen laakiin wax walba caqligooda markay ku qiyaaseen khaladaad badan uu ka dhacay. caqligooda wuxuu siiyey laba nin inay isguursadaan, caqligooda wuxuu siiyey laba dumar inay isguursadaan. yani taas waa caqliga keliya markii ictimaad lagu sameeyo, sida caqligii carabtii horeba islaamka intuu imaanin ka hor caqligooda siin jiray gabdhihii inay aasaan, waxyaaba saasoo kale lamid, inay isdhacaan, inay dulmiga ku faanaan. الظلم من شيم الرجال يعني خفك ninka ragga rajulanimadiisa ama raganimadiisa waxaa ka mid inuu daalim yahay, wax dulmiya. marka caqliga keligiisa markii liska sii daayo oon hoggaan uusan haysanin wuu lumaya. qur'aanka keligiis haddii la yiraahdo oon caqlina la soconin wuxuu noqonayaa qofka bini aadamka suu ilaah qur'aan ku sheegay kamathali alximaar yaxmilu asfaara, dameerkii xambaarsanaa kutubo cilmi ah. sidaa daraaddeed marka caqligii iyo qur'aankii way kala maarmi waayeen. ilaahay wuxuu soo dejiyey marka kitaabkii iyo miisaankii caqligii oo wixii lagu kala qiyaasi lahaa. maanta miisaan ayaa ku yaala, raashiinna waad gadaa, qofaa ku yimid wuxuu ku yiri kiilo sokor iyo cabir. dhagxaantii ku agyaaleen soo ku ogaanaysa haddaadan caqli lahayn kii kiila ah kii ruuc kiila ah. laabud inuu caqli jiro ee soo saarayo dhagaxii kiilada ahaa si uu meesha u saaro oo ugu cabiro. sidoo kale marka nidaamkii nolosha iyo qur'aankii waxa iswaafajin kara oo isku xiri kara markuu jiro caqli raajix ah ee horumarsan ee wixii la qaban karo. marka sidoo kale mujaahid ibnu jabr isagana wuxuu leeyahay almiisaan markuu sharxayay, inkastoo meelo badan uu ku sharxay uu yiri alcadl walinsaaf sida sheekhiisa cabdullah ibn cabaas u fasiray, haddana meelna wuxuu ku leeyahay ilhaam lilah, ilhaamu lilkhalq, yani guubaabin ilaah xaggiisa ka timid oo dadka ku guubaabinaya waa miisaanka. guubaabinta ilaah xaggiisa ka timid marka maxay tahay? waa caqligii ilaahi subxaana watacaala bini aadamka siiyey ee wixii ku miisaami lahaayeen, laakiin caqliga markuu la socdo nuurkii waxyiga. culammada psychologiga waxay yiraahdaan dadka waxaa ugu caqli badan dadka bartay ama dadka ah falsafada dadka la yimid. anitaa waa ku khilaafsanahay. waxay yirahdaan marka waxaa ku xiga abwaaniinta, dadka waxyaabaha alifo. waxaa ku sii xiga dadka aqoon-yahanada. labada kale waa ku waafaqsanahay, laakiin waxaa ugu caqli sareeya aniga taan aaminsanahay aan qabo oo caqiidat al-ashaaciradana ay tahay rususha ambiyada. caqiidat al-ashaacira muqarar waxaa u ah qofka nebi hadduu yahay rasuul yahay ilaah xaggiisa laga soo diray 4 calaamad inuu xambaarsanaado: الصدق inuu run sheego, والأمانة inuu yahay nin aamin ah la aamini karo, والتبليغ dacwada inuu dadka gaarsiinayo, iyo والفطانة inuu indheergarad yahay, caaqil inuu yahay. waxaana mustaxiilka ah suurtagal aan ka ahayn 4 cagsi ku ah: الكذب nebi inuu been sheego, والخيانة inuu khiyaano sameeyo, والكتمان inuu qariyo waxyigii lasoo amray, والبلادة idoqonnimo. marka saa daraaddeed ambiyada waxaa lagu yaqaanaa dadka ugu caqli badan inay yihiin. nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam khayru khalqillah wa acqalu nnaas ayuu ahaa, isagaa ugu caqli badnaa khalqiga. xataa quraysh cadowgiisa u qirteen inuu ka caqli sareeyo, ka caqli badnaa. marka saa daraaddeed ambiyada waxaa dadka ugu horeeyo number 1 ah oo ugu caqli badan. sidaa daraaddeed waxaa arkaysa axaadiistii nabigeena haddii fursad ama waqti noo saacan duruufa xalaqaadka soo socdo, sida sahalka oo qur-aanka wax ugu soo saaran jiray caqliyan. yani qof markuu u yimid ku yiri yaa rasuul allah, yani dameerka wax ku yimid ma jira sadaqadiisa? waxaan ognahay fardaha in qur-aanka lagu ammaanay in jihaad loo geli karo, dameerkana maxaa? markaasuu yiri nabigan calayhi salaam wax ku yimid ma arkin inta aan ka ahayn aayadan oo xulan oo naafica ah: faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah. in yar qofka hadduu sameeyo khayr inuu la kulmaayo. yani markiiba nabigan waxaa arkaysa istinbaat inuu qur-aanka ugu soo saaray, soo ugu soo saaray nuurkii caqliga ilaahi subxaana watacaala ambiyada siiyey. marka waxaa ugu caqli sareeya ambiyadii waxaa ku xiga oo ilaahay caqli ku manaystay waa awliyadii, awliyaa ullah. qofka hadduu weli ilaahay noqdo oo ilaahay xaggiisa u jeedsado, ilaahay wuxuu noqonayaa maqalkiisii, ilaahay wuxuu noqonayaa dhagihiisii, ilaahay wuxuu noqonayaa araggiisii. macnaha maxay tahay? ruuxdiisa jirkaaga waxaa ku jira ruux ilaah xaggiisa ka timid, ka duwan nafsadii. ruuxdaas markay sara marto wax walba way ka awood saraysaa.
caqligaaga ayay kasii awood saraysaa. caqligaaga marka wuxuu u noqonaysaa nuur kale kusoo kordhay. faman sharaxa allahu sadrahu lilislaami fahuwa calaa nuurin min rabbih. marka nuurkaas kusoo kordhay caqligii waa sii iftiimaya. sida imaam abulqasim aljunayd raximahu llah waqadasa lahu sirah wuxuu oran jiray sarad biunaasin fi lguyuubi quluubuhum fabaatuu biunsi lwaajidi lmutafadili. dad waxaa jira quluubtooda habeenkii u dhaxday qeybkii sare aaday. waxay yani habeenkii dhexeen waa beristeen iyagoo weheshanaya ilaahay subxaanahu watacaala ciraasan biqurbi illaahi fii dilli carshihi. yani iyagoo u dhow isku bambadhigay ilaahay dhawaashadiisa oo carshigii hoostiisa aaday, ruuxdii carshiga hoostiisa aaday. tajuulu bihaa arwaaxuhum watanaqalu. ruuxdooda meeshaas ay ku wareegaysaa carshiga agtiisa. mawaariduhum fiiha cala alcizi wannuha. waxay ka soo arorday, waxay ka waraabaysaa carshiga agtiisa cizad iyo caqli. qofka ilaahay saa ugu dhowaado weli min awliyaa illah ka mid noqdo, ilaahay ha naga wada dhigo. yani waxa u kordhaysa cizo, waxa u kordhaysa caqli, caqligiisa caqli kale kusii kordhaya oo ilaah xaggiisa ugu yimid. sababtoo ruuxdii ayaa iftiintay, saray aaday. saa daraadeed annagoo dhan waxaa ilaahay oo na tusay mucjizo noogu dhigay ama cibaaro noogu dhigay. kulligeena waxa culamo hadda sheegto dhan inaan faqiiriin u nahay caqligii culamadii naga horeysay. yani waxaa akhrinaysaa maalan ixyaa culuumuddiin 1000 sano in ku dhow la qoray. waxaa u malaysaa hadda in la qoray, xataa cibaaraad qaarna hadda fahmi karnaa jira caqligaaga uusan gaarin. saa ku dhacday 1000 sano ka hor wax la qoray, yani caqligaaga hadda weli kasii sareeyo. sababta kuma qorin yani qalinkii caqliga caadiga, laakiin qalinkii ruuxda ku qoray. imaam subki markuu ka sheekeynaya abi xaamid alghazali wuxuu yiri kaana caqluhu akbaru min cilmi. caqligiisa wuu ka weynaa cilmigiisa. cilmiga u bartay ee caqliga imaam xaamid alghazali xambaarsanaa waxaa weynaa caqligiisa. sababtaa waxaa nin martabad sidiiqiya alcudma gaaray. marka caqliga bini aadamka yani waxaa ugu caqli saraya ambiyada, waxaa ku xigta awliyada, tan saddexaad waxaa noqonaya falaasifada. shaki kuma jiro dadka falsafada la yimid inay la yimaadeen caqli. yani falsafa macna waxaa jaceylka xigmadda, qofka inuu jeclaado wixii xigmad ku jira. marka saa daraadeed laakiin markii xigmaddii aysan xambaarsaneen hoggaan, annaga ilaah wuxuu noogu nimceeyey marka hoggaan waxaa noo ah kalaamka ilaah, qur-aanka ilaahay. laakiin qofka faylasuufka markuu hoggaankaas uusan haysanin miisaanka wuu ka khasmaya. saa daraadeed sheekh alfalaasifa yani falaasifadkii ugu weynaa oo loo oran jiray soqraat oo nabi ciise dhalashadiisa kahor ilaa 500 sano in ku dhow yani jiray. hadaladiisa waxaa ka mid ahaa, wuxuu yiri qofka bini aadamku yiri waxaa jira waxyi ilaahi, ilaahay xaggiisa waxyi ugu yimid oo ka wada caqligii, iyo waxaa jira jirkiisii, iyo waxaa jira shahwadiisii. inta saddexda kan koowaad hadduu hogaamiyo, caqliga hadduu hogaamiyo, qofka wuxuu noqonayaa qof miisaaman. miisaanka dhabta qofka wuxuu gaaray oo ku socday markii caqligiisa hogaankuu dhiibo. miisaan waxaa galaysa jirkiisii, jirka wuxuu u baahnaa soo siin lahaa. miisaan waxaa koraysoo kale shahwadiisii, shahwada waxay u baahneed yani siday u heli lahayd. marka laakiin caqligii bini aadamka miisaankaas keliya oo caqliga keliya kuma filnee, miisaan kale inuu yani caqliga hoggaan inuu haystaan hore u sheegay oo ah yani waxyigii ilaahay. saa daraadeed marka isaga laftigiisa uu ku wareeray. falsafadiisana xataa yani door weyna ku yeelatay, jahwareerka isaga ku jiray. marka sababtaa dadaal bini aadan dadaalay ayuu ahaa, laakiin khaladaadka dhici jiray. marka sidaa daraadeed yani waxaad arkaysaa falaasifadii qaar badan iyaga ka mid ah haba isku khilaafaan ictibaaraadkii iyo nidaamkii diinteena islaamka inay meelo badan iska waafaqeen, ama tilaabooyinkiisi loo kala qaadi lahaa in la iska waafaqay. aniga marka shakhsiyan yani waxaanu arkaa si nolosheeni ka muslimiin ahaan ama qofka muslimka fardiga ah inuu say u noqoto noloshiisa nolol miisaaman, in 7 waxyaabood miisaankii la saaro. 7 waxyaabood haddii miisaankii la saaro iyadoo la isticmaalayo qalabkii qur-aanka, caqligiina laga shaqaysiinayo, noloshii inay balance garooweyso, ay miisaanaanayso. 7daas waxyaabood marka maxay yihiin? insha allah waxaad ku ogaan doontaa ama tan koowaad aa ugala socon doontaa casharka labaad ee jimcada dambe soo socdo
intaas ayaan kaga tagayaa wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka qaybgal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato si aad u hesho muuqaallo cusub fadlan subscriber noqo si aan u ogaano tusmooyinka aad ka heshay like saar ama share leh oo si fudud ula wadaag saaxiibadaada baraha xiriirka bulshada wixii talo ama tusaale ah fadlan ha naga bakhaylin ee hoos noogu dhaaf mahadsanid